golaha senatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta Wasiirada Caafimaadka xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya waxay kala wareegeen akhriska koowaad hindisa sharciyeedka golaha mihnalayaasha caafimaadka qaranka kaas oo sheegay inay isha soo marin doonaan isla markaana haddii ay noqoto in wax lagu daro iyo in wax laga dhimo ay soo eegi doonaan wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Wasiir ayaa waxay sheegtay in Soomaaliya ay kaalinta koowaad ay kaga jirto meelaha ugu xun hooyada iyo dhallaanka isla markaana loo baahan yahay in sare loo soo qaado hooyada iyo dhallaanka ay tahay waxa koowaad mudan in laga fikiro sidoo kale waxay sheegtay in wadamada ugu horeeya ee hooyada iyo dhallaanka isla markaana dhanka caafimaadka xooga saara ay ugu horeeyaan wadamada Finland, Switzerland iyo wadamo kale oo reer galbeedka iyo Yurub isugu jira ilaa 2012 dhimashada hooyada markay dhalayso ama kadib markay dhasho boqolkii kunba waxay ahayd 1044 wadamada adduunka ugu liita oo hooyo lagu noqdo wadanka Soomaaliya waa ka kow ilmaha sidoo kale waxaan September 2017 u tagnay aniga iyo Dr. Wili hadda ila socda Finland oo aad lacag u geliso Finland iyo Switzerland iyo Talyaaniga iyo Swedish ayaa aad u mahalgeliyo iyo Ingiriiska difad caafimaadka waxay sidoo kale sheegtay in ay la soo wareegi doonaan dhammaan bitaalada gacanta dowladda ka maqan isla markaana dowladdu ay leedahay inkastoo hadda ay sheegtay inay soo celiyaan inay la soo wareegi doonaan dhammaan isbitaalada ka maqan gacanta dowladda si loo tayeeyo hooyada iyo dhallaanka bitaalada dowladda in la wareego waxay ahayd halbeeg koowaad sharciga markii laga yimaado qorshihii aan samaysanay 2017 wuxuu ahaa waxa ugu horeeya inay ahaadaan horta sharci magaaladaas iyo wasaaradda dawladda ahaan kala xadida meeshan sharci haduu jirin qofna magaalada inaa u tagtid ama magaalo Soomaaliyeed farmashiyahan xir iyo jaamacadan ma dhigi kartid iyo ma fiicna ma la dhigi karo waa iswada ognahay laakiin sharci dawladda ka soo baxay la dhaqan galiyay hirgeliyay waa xalka kulliga dhakhtarkii iyo qofka mihnada lehna ee protect gareynayso dadkii masaakiinta ay dadka masaakiin iyo masaakiin la'aan qof kasto Soomaali ah oo xaq u leh daawo iyo dhakhtar adeeg hufan inuu helo waa waajibna wada saaran ugu dambeyn waxaa shirka soo gabagabeeyay isla markaana sheegay kulankan kan xiga kana laga doodi doono lana ansixin doono hindisa sharciyeedka ay wasaaradda caafimaadka xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya ay soo saareen kaas oo akhriska koobaad golaha mihnalayaasha caafimaadka qaranka aan ku kordhino isagoo goluhu ku fiirin doono indha ka gedisan maaragtay indhaha golaha kale maadaama ay tahay sida golo labaadba loo sameeyay ujeedaduna ay tahay in sharciga lagu fiiriyo aragti kale inuu helo waxna lagu kordhiyo sharciga waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa wasiirada wasiir Fawziyo Abiikar Nuur iyo howlwadeennada la socda dhamaantood howlwadeennada wasaaradda caafimaadka dadaalka iyo xilqaanka isu xilqaameen waajibka ka saaran in sharcigan uu heerkan soo gaaro intaan kadibna anagana waxaan ka howlgelin doonaa sida ugu dhaqsaha badan ugu degdega badan ugu contribution ka fiican inaan sharcigan aan anagana kaalintaas aan ka qaadano ugu dambeyntii waxaan leeyahay senatarada iyo howlwadeennada kale adinkuna sidoo kale mahadsantihiin waxaan ku wareejin doonaa sharcigan guddiga u xil saaran golaha inuu sharcigan uu maaragtay marsiyo habraacii xeer dejinta ee loogu talagalay si waafaqsan dastuurka iyo xeer hoosaadka aad iyo aad u mahadsantihiin kulankuna noo xiray Umar Abdullaahi Xasan Umar Naani maanta TV Muqdisho.